William Ruto madaxweynaha dooran ee dalka Kenya ayaa wareysi 40 daqiiqo ah waxa uu siiyay telefishinka caalamiga ah ee CNN waxaana uu uga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee gudaha dalka Kenya iyo weliba xiriirka uu la samaysan doono dalalka gobolka oo ay ugu horeeyaan kuwa dariska dhow la ah Kenya sida Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti, Uganda, Tanzania iyo weliba dalka Eritrea. William Ruto oo la weydiiyey su'aal ahayd sidee ayaad ula dhaqmi doontaa Soomaaliya maadaama dhowr jeer oo hore inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uusan imaanin xafiiska xiriirka labada dal aad u xumaaday. Waxaana uu sheegay William Ruto inuu ka shaqayn doono wax kasta oo macquul ka dhigi kara inuu xoogeysto xiriirka labada dal uuna qirayo in hornaan dhowr jeer oo hore mugdi uu soo kala dhex galay labada dowladood iyo xiriirkooda xagga diblomaasiyadda. Wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan la doortay horaan uu la soo shaqeeyay Kenya haddana uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo iyaguna ay diyaar u yihiin wada shaqayn xoogan inay la yeeshaan dowladda federaalka Soomaaliya ee cusub. Wuxuu sacadeeyay in uusan kala shaqayn doonin oo kaliya arrimaha diblomaasiyadda dowladda federaalka Soomaaliya balse uu kala shaqayn doono xaaladaha bini'aadanimo ee Soomaaliya ku dhuftay sida cuniyarida xoogan ee jirta iyo sidii wax looga qaban lahaa isaga oo kaashanaya beesha caalamka. William Ruto ayaa sidoo kale sheegay Soomaalida degta dalka Kenya sida waqooyi bari Kenya in kulamo uu la qaatay saacado ka hor ay u soo gudbiyeen 40% xoolihii ay dhaqanayeen inay waayeen isla markaana Soomaalida gudaha dalka Soomaaliya warbixintooda ay la wadaageen dowladda Kenya ay diyaar u tahay in si dhow arrintaas ay kala shaqeyso sidii looga gudbi lahaa. William Ruto ma uusan soo hadal qaadin ciidankooda qaybta ka ah howlgalka ADMIS iyo waxa laga yeelayo ma ka saari doonaa Soomaaliya mise weli waa ay ku sugnaan doonaan marnaba sooma hadal qaadin ciidankaasi. Ruto ayaa si weyn ugu dheeraaday ka jawaabidda su'aal ku saabsaneed xiriirka kala dhexeeya madaxweynaha talada ka sii degaya ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta wuxuuna cadeeyay in ilaa iyo iminka uusan u soo hambaliyeynin madaxweynihii 10 sano aynu ka soo gudubnay hogaaminayay xafiiska. Wuxuuse sheegay inuu u malaynayo inuu aad u careysan yahay Uhuru Kenyatta maadaama musharaxii uu taageerayay isaga uu ka adkaaday, laakiin uu aaminsan yahay in haddii ay yihiin Kenyaanka ay xishmeynayaan dastuurka, dhaqanka iyo weliba wax walba oo macquul ah oo isku hayn kara Kenyaanka. Kadib doorashadii muranka uu ka dhashay ee William Ruto 15 bishii hore lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay, waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qadka telefoonka uu kula soo xiriiray William Ruto isagoo u hambaliyey una ballan qaaday in wada shaqayn xoogan ay dhexmari doonto.